mahmaa Soomaaliyeed baa tiraahdaa wanka weyni ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan ninkani haddii uu qabo cabsi uu wax iska saaraya shacbiga Somaliland dee muu sameeya waxa uu samaynayo kow madaxweyne Ciro specifically maalintii dekedda Berberaad la dhisayay wuxuu sameeyay waad ogeydeen gudoomiyaha baarlamaanku ahaa maantana waad arkaysaa halkay taagan tahay dekeddii Berberaad kow iyadoo oo taasi jirto oo dhidibkii saddexaad ee waddankan uu ahaa buu haddana maanta madaxweyne noqday maanta oo madaxweyne u noqdayna oo uu Somaliland madaxweyne ka yahay waka publicly ugu qudbadaynaya isaga oo telefishinada caalamka adduunku wada daawanayaan maamul goboleed ka mida Soomaaliyaan ahay war dumista ka badan qarannimada Somaliland ee u geysan lahaa maxay tahay madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirto waan ogahay waxa meesha ka socda laakiin in waddanku baaba'o iyo inaan anigu madaxtinimada waayo I choose inaan madaxtinimada waayo let's go I have xaqiiqooyinkaas oo dhan maanta haddii loo baahdana aan soo bandhigi karaa okay lacagta ina awsiciid markuu imanayay Somaliland lacag waxa uu leeyahay waxa loogu shubay Dubai waxa lagu yiri waxa lacag ku yaala Somaliland iyo Djibouti isbangare doorashadaana ku isbangare and he did markuu soo galay Boorama maalinta waan joogay bara sabkan la waxaan ku warninkaas soo galay lacagna u sidaa bara sabku wuxuu la hadlay madaxweynaha ninka maxaan ka yeelaa inaga daayay buu ceebaynu ka qaadiyay waxba sameynana don't worry let's go okay waxyaabo badan baa jiro oo aan ogahay lacagtiisii Dubai baa loogu shubay dhammaan wuxuu lacag waxaan leeyahay fuaadow xildhibaanka aad soo hadal qaaday Maxamed Abiib waxaa layna daawodsiiyey muuqaal ay duubeen sirdoonka Somaliland isaga oo magaalada Dubai kulan kula leh hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya xubno ka socda waxa kaloo aynu dhageysanay cod isagoo hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya la hadlaya oo uga warramaya inamada serverka haya ee doorashada Somaliland maamulaya inamada inay iska hagaajiyaan nimankaasi oo inamada hagaajiyaan isagoo aad ugu adkaynaya ayay sii daayeen muuqaalkii cajalada hay'adda sirdoonka Somaliland fuaadow ma waxaad leedahay sidaas uu dalku faraha uga baxayo madaxweyne Biixina wuxuu ka door biday nimankanu halka u haliilisay inay gaadhaan oo halka kama dambaysta ee xaslooni de halkay doonaan haynala tagaan hadhow lagu gaadhayaa inay halka tahay buu u muuqday sidoo kale de doorasho way dhacdaa cid un baa ku badisa either way de waa laga yaabaa inay helayeen nimankan xisbiyadan mucaaridka haddii si furan oo xalaala ay wax u doonaan laftooda Somaliland waa taqaanaayo waaba iskaga garaabaan mucaaridka shacabkii cod bay siiyaan marka waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maanta here we are halkan aynu maraynaa waxaynu u baahannahay sidaynu de uga baxnaa halkan aynu taagannahay imanka madaxweyne Ciro waa de madaxweyne waa sanadkiisii koobaad 4 sanadood oo kale haddii uu shanta
haddii kalena dee wax kale madaxweynihii uu shaqaynaya he's not going anywhere sidaynu u xallinaaye dalkeennuna u badbaadaa danta aynu leenahay inuu gaadhno waa su-aasha kale doonaya inaan ku weydiiyo waxay tahay labadaa xisbi ee professor samater uu sheegayuu leeyahay lacagtaasaa uga timid dibadda waddanka oo meelaha weliba dalka lagala dagaalamay ka timid buu yidhi isagoo dee waa public speech ninkani wuxuu jeedinayaa adigu xisbiyada aad tuhmaysaa waa iyo waa waddan iyo ka waa labada xisbi weeye markaa 15 waxaa qaatay waddani 3 milyan iyo 700 kunna ka baa qaatay yes okay walaalkay jawaab ka qabanaa sideen wuxuu xalinaa okay niyow madaxweynuhu waa shaqsiguna wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynuhuna wuxuu ku shaqeeyaa talada iyo rabitaanka shacbiga Somaliland shacbigii Somaliland waa la kala jabiyay qaar waxa loo sheegay waddanka loo diidan yahay qaar waxa loo sheegay in imika waddanka laga raafayo qaarba waxba loo sheegay goroda la isku wada geliyay reerihii baa la dhex galay oo reerihii qoysaska ahaa ee familka ahaaba hadda qaar gudahooda lagu jiraayo waad arkaysaa oo la kala saaray okay waxa kaliya ee lagaga bixi karaa waxa weeye dhalinyarada iyo waxgaradka shacbiga Somaliland inay soo istaagaan oo ay yiraahdaan enough is enough iyagoo mida waddankoodana difaacdaan madaxweynahani hadduu ku shaqaynayo rabitaanka bulshada Somaliland walan gud haddii aanu ku shaqaynayninna sidii la isaga qaban lahaa 5 sano waa waqti talefara ka baxday haddii uu ku shaqaynayo publicly rabitaanka shacbiga ummadda Somaliland he is the president haddii uu ka soo horjeeda qarannimada iyo rabitaanka shacbiga Somalilandna he's not going to be a president madaxweynuhu waa in la soo fadhiisiyaa public uu ku caddeeyo inuu yahay madaxweyne muwaadin Somalilandera oo qarannimada iyo midnimada iyo karaamada Somaliland ka shaqaynaya iyo inuu yahay khaayin waddan labadaa uu mid noo caddeeyo marka uu labadaa kala caddeeyana talaabadeeda aynu qaadno there is no other way Siciidow problemski jira Somaliland gudaheeda dadku fuaado indhay u baahan yihiin indhahana waxa u noqda aqoonyaanka iyo waxgaradka waxaana isku xidha warbaahinta madaxa bannaan ayaa qaada warka dadka aqoonyaanka ah oo grassrootska u geysa Soomaaliya waxay naga qabatay warbaahintii madaxa bannaanaaba ay iyadu haayartay oo iyaday u shaqeeyaan waxaynu nude caadi aniga adig iyo qof kasta oo caqli leh garanaya warbaahinteena madaxa bannaan inaanay labada xisbi ee waddani iyo ka qof ka yimiday aanay su'aal critical inay weydiiyaan ama yani warbaahintu way xisaabisaa qofka iyadoo dareenka shacabka ka matalaysa literally waxay ku amrayiin inay la shaqeeyaan inay ka hor yimaadaan labada urur warbaahinteennii madaxa bannaanayd marka laga reebo inankan Axmed Doole iminka ay xidhxidhaan ka qabto maalmo meel ka jiidaan intii kale labadan xisbiya isku lamaan bay de ka mid yihiinba warbaahintii madaxa bannaanayd hay'adaas maadaama ay duntay shacabkiisu iska indhayo dhagala'aan maayo qofba mid TikTok joogi iyo mid meel ka hadlay mid hadduu doono dana kale oo dadka isku diraya soo halkaa wareer badan ay nagama haysto sidaynu arrintaa u maaraynaa aqoonyaan baa tahay qurbajooga fuaado xageenu wax ka qabanaa okay walaalo waxay tala ku soo ururaysaa taws nin lagu gagasha toldo weerkiya maanta inaga madaxii dhalinyarada labadeenuba wiyaarno age hadda ummadda dhalinyarada soo kacaysa
afartan jirka soddon jirka labaatan jirka in aynu wacyi gelino weeye tusno khataraha iyo seefaha ku soo foolle okay madaxweyne wuu tagaa waanu yimaadaa nin kasta oo muwaadina oo somalilandarina xaq buu u leeyahay haddii uu buuxiyo shuruudihii inuu madaxweyne waddanka ka noqdo no matter who cidduu yahay iyo meeshuu ka yimid as long as uu somalilander yahay xaq buu leeyahay in aynu ummaddeenna ka dhaadhicinno inay kala gartaan who is with you and who is against you kow inaynu u xaqiijinno wadda cad oo ay maraan oo ah waddada qarannimadoodu ay hayso inaynu kala tusno shacbiga iyo dhallinyarada yaa u adeegaya iyaga yaa ka adeeganaya marka aynu intaa tusno dan waxaynu filayaa inaynu waddadii saxda ahayd mari doonno qof kasta oo dhallinyaro ah maanta dhallinyaradeennu I will say 70% waa mutacallimiin waa dhallinyaro waa ageka u dhaxeeya let's say 50 to 18 dhallinyaro marka la yidhaahdo inta u dhaxaysa shacbiga ugu badan somaliland intaasina waa wada mutacallimiin garanaya what's wrong what's right laakiin qaar la geliyey maskax reer baa reer ku duulaya reer baa reer ka soo horjeeda reer baa sidana waa reernimadu haynoo joogto laakiin dalladeennii guud ee somaliland sidaynu ku badbaadinaa waddada keliyaynu ku badbaadin karnaana waa inaynu helo hoggaamiye ku shaqeeya rabitaanka shacbiga somaliland taa waynaynu sheegnaa ummaddeenna fu'aadow ka warran ragganay nimankani wax ka soo qaateen waddan iyaka ah ee soomaaliya iyo jabuuti joogaay ballan iyo axdi iyaguba ma ilaaliyaan hadday dantii mar hadday ku soo gaadheen xadhga u gooyaan oo yidhaahdaan war nagala taga annagu dalkayagaannu difaacanaynaa taa ma kula talinaayo ma ku tirtirsiinaa oo anigu dee anigii markii ay doorashada galeen kadib dardaarankaygu inta badan kaasuu u badnaa dadkuna waxay moodayeen inaan dacaayadaynayo oo maagayo nimankaa doorashada helay halkaa ma kula tahay in wax laga baadho ilaa nimanka iyagaa midada daabkeedii haya nimankii odayaasha ahaayeen inaynu nidhaahno war ragga kusoo dangaadhee waxay yeeshaan dee waydinkaa maxay kula tahay okay way tahay walaalo laakiin mid baa jirta mahmaa soomaaliyeed baad tidhaahdaa wanka weyne ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan ninkani haddii uu qabo cabsi uu wax iska saaraya shacbiga somaliland dee muu sameeya waxa uu samaynayo kow madaxweyne ciro specifically maalintii dekeddaa berberaad la dhisayey wuxuu sameeyey waad ogeydeen guddoomiyaha baarlamaanku ahaa maantana waad arkaysaa halkay taagan tahay dekeddii berberaad kow iyada oo taasi jirto oo dhidibkii saddexaad ee waddankan uu ahaa buu haddana maanta madaxweyne noqday maanta oo madaxweyne u noqdayna oo uu somaliland madaxweyne ka yahay wakaa publicly ugu khudbadaynaya isaga oo telefishinada caalamka adduunku wada daawanayaan maamul goboleed ka mida soomaaliyaan ahay war dumista ka badan
qarannimada Somaliland ee u geysan lahaa maxay tahay madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jirto ugu dambayn faadow ma la odhan karaa qoladiinnii kulmiye ee imika iyagu isku jeestay oo yaradda waqsan baad mooddaa inay halkaa hoosta ka yara feedhayaan madaxweynahoo ay u dhex raacinayaan ma la odhan karaa hawsha aanu ku jirno annagu yee ah inaannu madaxweynihiin idhaahno war ka daayo sidan yaal okay Siciidow anu kulmiyaanahay I'm not denying that weligayna codkayga lama gaban dacar hadduu ka qadhaadh yahay laakiin kulmiye iyo waddani halkaa inoo dhig maanta qarannimadii baa maanta meesha taalla oo dhaya xarada ilaah baan kugu dhaarshay adigoon xusbina taageerin oo muwaadin Somaliland ah hadalkaa maanta cirro uu yidhi how do you feel no kulmiye no ucud no anybody just muwaadin Somaliland dariiqa nimankan inagu fureen ee ah in ama jabhada hubaysan la tallaabiyo Soomaaliya loo tallaabiyo Somaliland la dagaalamo ama in kuraasta nala raadiya lagaga doono taageero maaliyadeed iyo mid kalaba iyo pressure siyaasadeedba oo ninkan imika aad sheegaysa inuu Siciideed ka hadlaysaa Ismaaciil Cumar Geelaad dee gacanta maroojinayay halkaasaa xoolihiisa in badan oo ka mid ah taallaa iyo bisaskiisu marka waxa isku xidhnaa raggii ku hirdamayay doorashada iyo madaxweynihii Jabuuti ayaa isku dhinac ka waday dariiqaasi dariiq furan oo laga yaabo in iyaga qudhoodana haddii ay dee in cid kalena hadda kadib hungurayso oo goroyo heriyeysani marka dambe inooga soo dhacdo miyuu noqonayaabay kula tahay mise isaga qudhiisu inaynu qoladannan nidhaahno wixii aad meesha alla idinka qadare ka hesheenay naga awda dariiqa hadda kadib kuwa kalena ka waanino nidhaahno halkaa waxba yaan laga doonin aynu isku soo noqonno innagii Somaliland ahayd dimuqraasigeennuna hadda kadib gudaheenna ha ku ekaado arrinkaa maxaad sideed u arkaysaa adigu faadow okay anigu I am okay with that Siciidow inaynu ninkaa lala hadlo la yidhahdo war waxaan sheekadan bedel haddaba ku macaashay bedel in la yidhaahdo I'm okay with that laakiin ninka maskaxdiisuba keentay taa ma u malaynaysaa in wacyi kuugu harsan yahay because waan kuu soo sheegay tallaabooyinkii iminka maxamuud xaashi ha isku lamaanaadeen cerro laakiin by hook or by crook kursigaa inuu ka qaado wuxuu diyaar u yahay dariiqyadii uu kala shaqeeyey isaga iyo cerro soo wada mareen iyo kuwo ka sii kharibanba inuu maro ma foga waxaan kaala hadlayaa faadow dadku meelo kale wax ka eegayaan nimankii saaxiibka ahaa ee soo wada guuray haddii aan la iskaga baydhin kursiga sidii cerro looga baydhay maxamuud xaashi ama huwan iyo gudaha waddanka ha ahaato ama dibad iyo xasan sheekh iyo Jabuuti iyo Qatar iyo meel kastoo la tagay ha ahaatee isagu inuu labilaabo culayskii cerro keenay buu iminka diyaar u yahay miyaanay haddana khatartii mar kale kaabiguun inagu haynin oo lagaba yaabo markan dee ile raggan wax soo taageerayay waxbay doonayaan cerro waa kan iminka barigii waddanka faraha uga qaaday innagana indhaha iyo dhagahayna hayeele ma xasuusan kartaan waddanka barigiisii wax kalena uu adigana iminka sheegaya qiimaha aynu bixinaynee hadba cidda ay nimankaasi wax soo taraan ay siinayso oo fargaraynaysaa ma ka soo hadhaynaayo dee waddan ma jiri karaa Somaliland oo madax bannaani maya khatartaasina meesheeday leedahay Siciidow war kalaana kuu sheegaya hadda waxaa warar xog ogaali sheegayaan in Jabuuti hub laga soo gudbiyo ceelgaal meesha la yidhaahdana la keeno habeenkiina baabuurtu ay socdaan guddoomiyaha gobolkuna u siiyey warqadda socodka anu taliyaha custom ku baadhi karin nobody else
aan baabuurtaa waxba la weydiinin iyagoo jabuuti ka soo socda ay yimaadaan ceelgaal ay ku dejiyaan then they go back waa fact waa warca taasina ina maalmo gudahood bilo gudahood waxaad arki doontaa iyada oo awdal problem ka taagan yahay waana la og yahay guddoomiyaha gobolka selel waa nin ciisaa ismaaciil cumar geella ku xidhan that's the reason hubkaasi halkaa u soo maro aanu baari karin guddoomiyaha customka low yacdo bal arrintaana baadhitaan dib ha loogu noqdo kow waxyaabo badan baa karaya siciidow ka fog hadda intaan arkayno maalin dhaweyd waa maqlaysaan u malaynayaa nin fiqi la yidhaaho lahaa reer awdalow qalinka dhigoo qoriga qaata calanku guri walba wuu yaalaa iskamuu lahayn it is a reason uu yidhi waxa okay madaxweyneheennu maalintii problemku hargeysa ka taagnaa ayar baa intuu xaaskiisa gacanta qabsaday buu dubay ka degay gadhase ka raabood hargeysa waxaa ka dhacaya dhiyutangeenu saylac waxaa ka dhacaya danaynaya markaa okay wardiyow talaha laysugu yimaado somaliland talaha isugu timaado dhalinyarada somaliland talaha isugu timaado intaasaan anigu kusoo gabagabaynaya dee wixii qaladayga dhacayna raalli iga ahaada